Bismillahirrahmanirrahiim. Nabadda wadayaal. Halkan waa channelka Shakuri Channel. Waxaana si toos ah ula socotaan xubinteenii hadahan oo kale aad nooga barateen inaan hawada idinka soo dayno oo ahayd taariikhda ciyaaryahanka. Haddaba ciyaaryahanka maanta miiska noo saaran waa ciyaaryahanka magaciisu yahay Michael Black. Haddaba ciyaaryahankan oo lagu naanayso ar-rajulul khasir fi kulli al-awqat ama the biggest pole loser of all time in football. ciyaaryahankii ugu khasaaraha badnaa ee final ciyaaray kubadda cagta adduunka intii lagu guda jiray. Magaciisu waa Black si aan hore u soo sheegnay. Waxa uu u dhashay dalka Germany. Waxaa loo codeeyay inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican 2002, 2003 iyo waliba 2005. ciyaaryahan Black waxa uu ahaa ciyaaryahan aanan marnaba ka goyn qarbiyada reer Germany. ciyaaryahankan khadka dhexe ee reer Germany waxa uu noloshiisa u soo ciyaaray kooxo aad u fara badan. Haddaba waxaan in yar ka indhayn doonaa ama aan yara fiirin doonaa intii uu ku guuleystay ama uu ku guuldareystay kuubkii uu ciyaaray intii uu ku guda jiray kubadda cagta. Waxa uu ku guuldareystay kuubkii Champions League oo uu ciyaaray 2001 waxa uuna ku waayay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. 2001 isla sanadka waxa uu ku guuldareystay horyaalka Germany inuu la qaado kooxdiisa Bayer Leverkusen oo kaalinta labaad la galay. Sidoo kale waxa uu ku guuldareystay inuu qaado kuubka boqorka ee Germany. Haddaba waxa uu iskaga soo hulaalay halka oo uu soo aaday horyaalka Ingiriiska sanadku markuu ahaa 2008. 2008 kooxda Chelsea waxay ku guuldareystay inuu koobka loo dhigo kooxaha Yurub ee Champions League waxaana ka qaaday kooxda Man United. isla sanadka waxa uu ku guuldareystay inuu ku guuleysto kuubka League Cup-ka halka uu sidoo kale la waayay finalkii 2008. Haddaba ciyaaryahankan Black ayaa la weydiiyay nasiib xumadiisa. Waxa uu yiri sidatan: inkastoo aanan ahayn ciyaaryahan kuub ku guuleystay, laakiin waxaan filayaa inaan ahay ciyaaryahan khaas ah oo kubadda cagta soo maray. Michael Black inkastoo ku guuleysan wax kaaba uuna la qaadin kooxa uu ciyaaray amaba wadankiisa, hase yeeshee waxa uu hantay qalbiyada reer Germany. aad baad u mahadsantihiin daawadayaal. Fadlan like, subscribe and share marnaba ha ilaawina. aad baad u mahadsantihiin.